haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. fadlan dooro saddexdan sheekada ugu cabsida badan. sheekadani waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo Kamaal iyo walaalkiis ka yar waxay imaadeen baadiyaha iyagoo soo booqanaya ayeeyadood. markii guriga ayeeyadood ay imaadeen waxay bilaabeen ciyaar iyo inay iska baashaalaan. habeenkii markii la gaaray way casheeyeen. Kamaal ayeeyadood ayaa waxaa ku dhahday banaanka yaa la isku bixin. Kamaal aad ayuu u baqay sababtoo ah ayeeyadiis ereygaas markay ku dhawaaqaysay wejigeedu wuu isbedelay. laakiin Kamaal iyo walaalkiis ka yar warka ayeeyadood ay ka qaateen haye ayayna dhaheen. habeenkii markii la jiiftay Kamaal walaalkiis ka yar wuu jiiftay, laakiin Kamaal asiga ma jiifan sababtoo ah mobilkiisa ayuu ku ciyaarayay. xoogaa asigoo mobilkiisa ku ciyaaraya ayaa waxa soo kacay Kamaal walaalkiis ka yar, wuxuuna ku yiri walaal waxaan doonayaa in aan jalaato soo iibsado. Kamaal inkastoo ay ka dheereed meesha jalaatada lagu iibiyo, laakiin asiga xataa wuu u baahnaa. asiga iyo walaalkiisna waxay qaateen baaskiilkooda waxayna aadeen meesha jalaatada lagu iibiyo. 2 jalaato ayayna soo kala iibsadeen. guriga ayayna waxay damceen inay ku soo laabtaan. xoogaa markii ay wadada ku soo socdeen, Kamaal gadaashiisa ayuu wuxuu ka dareemay in uu qof taagan yahay oo kale. kadib Kamaal wuxuu arkay wado uu markii uu guriga uu ka soo tagay uusan hore u arag. Kamaal wuxuu yiri aniga walaal wadadan ayaa ka baxa, adiga meesha rabti ka bax. laakiin Kamaal walaalkiis ka yar gadaal ayuu fiirinayay, aadna u naxsanaa. Kamaal asigana aad ayuu u naxay sababtoo ah markii hore ayuu ka shaqo qabay in gadaashiisa uu qof taagan yahay. hal mar ayuu Kamaal baaskiilkiisa xoog u soo waday asigoo ka baqaya qofka gadaal ka taagan in uu korkiisa taabto. Kamaal markuu soo cararay waxaa ka soo daba cararay walaalkiis ka yar. Kamaal baaskiilkii ayaa dhulka ugu dhacay, laakiin wuu soo orday. guriga ayuuna soo galay. albaabka ayayna si dhaqsi ah ku xirteen. run ahaantii Kamaal iyo walaalkiisa si nasiib badan ayay ku badbaadeen, waxayna galeen sariirta hoosteeda. subaxii markii la gaaray, ayeeyadood ayaa Kamaal iyo walaalkiis quraac u keentay. quraacdii markii ay cuneen waxay soo raaceen baskii si ay gurigooda ugu laabtaan. laakiin Kamaal wuxuu go'aansaday wixii xal ka cabsiiyay in uu raadiyo uuna ogaado waxaasi wixii ay ahaayeen. laakiin Kamaal arrin aad u naxdin badan ayuu arkay sababtoo ah wadadii oo hore u arkayay oo go'aansaday in uu ka baxo waxay ahayd wado jaban taasoo buur ka dhicisay haddii aad raacdid. wadadaasna Kamaal aad iyo aad ayuu ugu baqay sababtoo ah markii hore hadduu wadadaas ka bixi lahaa wuu dhiman lahaa. sheekadayna labaad oo aad u cabsida badan waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Leyla. waa gabarta ugu firfircoon jaamacadda ay dhigato, laakiin waxaa ku dhignaa kursi gabar qof waalan oo kale u eg. Leyla hal mar iyadoo kursigeeda fadhisaa ayay gabartii fiirisay. gabartii way qaylisay sida wax jinniyaal haya camal. Leyla isla markii waxa ay ka soo tagday jaamacaddeedii iyadoo soo baxday gurigeedana imaaday. maalintii xigtay, Leyla iyo asxaabteeda iyagoo iska ciyaarayaan ayaa waxay arkeen fasalkeeda oo lagu kala cararay. fasalkana waxaa ka yeeraysay qayli aad u daran. Leyla waxay go'aansatay waxa qaylinaya in ay ogaato, waxayna soo fiirisay albaabka. isla markii waxay isha ku dhafatay gabartii shalay qaylinaysay in ay mar labaad qaylinayso, laakiin markaan way ka dubneed. madax ayay ku taagneed, lugaheedan kor ayay jireen. Leyla laakiin wax kaloo dheeraad ayay aragtay. waxaasna waxay ahaayeen in gabartaasi lugaha laga haayo. waxa lugaha ka haayna lama ogeen. kadib gabartii iskoolka waa laga fasaxay
ardaydana waxaa loo sheegay in ay gabartaasi mar damba aysan soo laabanayn. Sheekadeena saddexaad ee aad kuwa cabsida badan waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Faa'iisa. Faa'iisa hooyadeed sanad ka hor ayaa kelida laga qabtay, kadibna keliya xanuun dartiis ayay u dhimatay. Faa'iisa hooyadeed way ka dhimatay, laakiin waxaa la joogay ayeeyadeed iyo awowgeed. Ayeeyadeed iyo awowgeed Faa'iisa aad ayay u jeclaayeen. Habeenkii markii la gaaray, Faa'iisa iyadoo sariirteeda iska jiifta ayaa waxa ay dareentay sida qof ciiji ku haya oo kale. Faa'iisa markii ciijida lagu qabtay, xataa afkeeda hadal wuu ka soo bixi waayey, aadna way u baqday. Xoogaa kadib way soo naxday, isla markii waxay ka soo kacday sariirteedii, qolkii ayayna ka soo orday iyadoo u soo orday qolka awowgeed, laakiin nasiib xumo albaabkii wuu u furmi waayey. Darba ayay isla markii ku dhufatay albaabka, albaabkana wuu ka furmay. Waxay aragtay wax ay aad ugu naxdo. Faa'iisa waxay aragtay sariirta awowgeed oo saaran shay sida hooskii oo kale ah oo sariirta ku dul rafanaya. Aad ayay u sii cabsatay Faa'iisa, isla markiina way ka soo carartay qolka awowgeed, waxayna u soo carartay qolka ayeeyadeed. Waxay aragtay ayeeyadeed oo meel kaligeed fadhisa, waxaana ku dhahday awowga ayaa raadinayay ee ma aragtay. Faa'iisa waxay soo aragtay dhammaan, uma sheegin ayeeyadeed sababtoo ah waxay ka baqaysay in ay sii cabsi geliso ayeeyadeed. Kadib qolka awowga markay ku soo laabteen, waxay aragtay Faa'iisa awowgeed oo qof la hadlayo. Qofkaasi oo awowgeed la hadlayayna wuxuu ahaa Faa'iisa hooyadeed. Faa'iisa isla markiiba arrinkaas aad ayay ugu naxday, shoog ayayna ka qaaday. Isla markiina waxay ka shakisay in qofkaaniba uusan ahayn hooyadeed, uu doonayo in uu iyada dilo. Waxayna ka shakisay waxa sariirta ugu dul imaanayay in ay ahayd isla iyada. aad ayaan ugu baqday Faa'iisa. Fadlan fiidiyowga like garee si aan fiidiyowyada u soo badino. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억나지 너의 미소